وكم هذا علينا سودوينتا يا شرفدة يو إلى يدكورون يحي مرتقاتك طلق عمر محمود جزاكم الله خير جزاء الله يدين شرفه الله يدين سودويه الله يدين دوره إن شاء الله تعالى إلهي أساس يدين كبرية بنا وهم هذا علينا كلن كان نبت قليدة يا خير يا وناق السوق كان قروح ضاع إنه سهلي لنا أول بحضي تحي إلهينا وين هذا علينا إلهنا زيادة بينوا لنا دور غضبان إن شاء الله تعالى محنقة مركا عن كسوق جدبو إن شاء الله تعالى أن يركتها تابنا يا وحنو مرينا يا وهذا البحوث له هوس ولي بهذا له إن شاء الله تعالى أرنتن tolkan maanta wada fadhiya Umar Maxamuud iyo Bahar Same waxay yihiin la isu sheegi maayo haday dhalasho tahay haday deegaan tahay haday isku noolaansho tahay haday Ilaahay ku roon yahay isku abtirsadaan oo waa isdhalayo wiil iyo abtigi maaha qabiilooyin bay isugu abtirsadaan oo Ilaahay ku roon yahay waxay isu dhaleen waa jilibo dhowr kun oo nina maaha dhowr qof oo abtiba la yahay maaha jiliba dhan oo Bahar Same ya waxa dhalay oo ka soo jeedaan Umar Maxamuud jiliba dhan oo Umar Maxamuudna waxay ka soo jeedaan Bahar Same dhowr kun oo sanay isdhex deganaayeen intii Ilaahay wada abuuray wada dhaliyayba waa ay wada deganaayeen oo waa ay wada noolaayeen oo shaydaan uunba ka dhex shaqeeyay shaydaanku markuu qaalib noqday ninka dadka wanaagsan ee aamusaan dadka xumitaliyaana aqliga la qaadaa dhowr sana Ilaahay aqliga iga qaadayo shaydaan inugu shaqeysanayo Ilaahay waa inoo soo celiyo aqligi Ilaahayna waxaynu ka baryaynaa shaydaanka inuu inaga fogeeyo hawshanna nabadgelyadii meel wacan bay maraysaa ruanti isimadii Islaam Bashiir iyo أمير محمود iyo إمام عبد الوهاب iyo ragii kale kaalinka ay ka qaateen ba ka weynaa ka anigu aan ka qaatay khayr Allah siiyo imaanshahoodii gogoshii hore ilaahay ku dhiirashadii marna waana la kale ilaalinay Umar Maxamuud iyo Bahar Same ciidamo Itoobiyana dhex fadhiyay oo ilaahay haduu ku roon yahay kale ilaalinay marna saax dheer waanu wada joognay oo cid kale wala harti wala daarood kale nala joogay ولا إثيوبيا ولا جوكتي ما تجريني إسكو فريز بيحيد نبضي لقاتي إن لا تصدق إن يدبك تحي إن دت كان إلى يذكره يهي حمانت وناجب أي كل ريان ولا دل الشدود يوحى كده هي أي كويهين دبكي يرى دحمري ما أنتي كدم بيسنا دور جربا قديد يسوتجين gudiyada wada shaqeeya ee aanu dhisnay ee aanu dusha ka ilaalinayno dhowr jeer bay isu tageen oo labada deegaanba ay mareen joogtana saddexdii biloodba marna inay isu tagaan oo deegaamada la maro waa ka balansanay inagu maxaynu ka qaban karaa hawshan walaa isimadayada gaarka waxba ugama qaban karayno walaa culimadu gaar waxba uga qaban karto uqaashu gaar waxba uga hadayna labada dhinac oo dhan aynaan gacmaha isugu geyn oo aan la iska kaashan oo dhalinyarada iyo odayaasha iyo ganacsatada iyo culimada iyo aan meel laga wada istaagin kalmadna ha ahaatee kalmad lagu darsado oo walaaltinimo waxbay taraysaa jaaliyada labada dhinacba waxaanu ka codsanaynaa horta in wax tarha jooga inaan wax dhibaato laga geysan hawsha oo qofna uusan hadal iyo ficil iyo dhaqaale midnaba uusan xumaan uusan ka geysan ta kalena waxtarkeedu de waa in dadkii Ilaahay ku roon yahay la isu waaniyo kii xun ee la sheego bini aadamka dad xun waxay yiraahdaan nin tol wanaagsan wada doonay tol la'aan baa leh dadku Ilaahay sunnaba ma Ilaahayna uma abuurin inay wada wanaagsanaadaan ka xun in gacanta la qabto oo la isugu tago labada dhinac oo Ilaahay ku wixii inaga xumeynaya wanaaga iyo wada dhalashada iyo wada noolaanshaha in aynu iska wada qabanno oo meel uga soo wada joogsano oo aynaan oran waa ayo hal yiraahdo ama waa xun yahay ama wanaagsan yahay waxaan insha Allah ta'ala labada dhinac ku dari lahaa deegaanka abaara waaweyn ba ka dhacay colaada ka dhacay
dadku xoolihii ay haysan jireen waa ay dhaafeen maga waaweynna waa lagu leeyahay magahaasina furay nabadda u yihiin waxay u yihiin gundhig bay nabadda u yihiin yaa la oran magta gudaha laga bixin jiray arrinta ha laga qayb qaato oo odayaasha ha loo dhaga nuglaado oo ilaahay hadduu kuu rooyo codsiyo badan labada dhinacba waa u imaanayaan oranaya hawsha waxaana laga soo taro oo dee wiil walaalkii ama aabihii ama ilaahay hadduu kuu rooyo la dilay oo hadeer aan waxna lagu sasabin oo aan odaygu uusan hayn wuxuu laabo warbarinta qaato ku aamus cidna waxoodii oo dhan la wada siin maaye waa ku adkaanaysaa sida ay u xakameeyaan ha laga taageero oo waxa weeye waa soonka iyo salaadaba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka hormaray islaaxu bayna annaas islaaxu bayna annaas baa ku jira labadiina dhinacba cuqaashii iyo waxgaradkii iyo odayaashii hadday soo hadlaan oo yidhaahdaan xaajadii taasaa noogu fiktaa maraa nugu harsan ha laga taageero insha allahu tacaala ha laga qayb qaato idinkuna dee waxa weeye isku xidhnaantiinna iyo kulankiinna iyo ilaahay adkuna soo wada hadalkiinna iyo guddigiinnu waxbuu tarayaa mar labaad iyo mar saddexaad waa ka mahad celinayaa kulankan iyo qadadan iyo sharfidan iyo soo dhaweyntan jazaakum allahu khayra jaza tolkii jira allah idinka yeelo ilaahayna waxaynu ka baryaynaa dhibkaa inuusan inagu soo celin qaylo dambe ayaan tolkeen ayaan ka dhex yeerin ilaahay saasaynu ka baryaynaa walaaltinimadeenna allah adkeeyo xumaanteennana allah kala qariyo quluubteenna allah isu dumo quluubtu isu dumaa quluubtu isu dumantee ilaahay quluubta tolkeen ha isu soo dumo xumaantana ha ka saaro intii ku dhibaatootayna samir iyo iimaan allah ka siiyo cawil khayr qabana allah ugu bedelo ilaahay baynu ka baryaynaa nabad iyo nolol iyo ilaahay hadduu kuu roon yahay nabadgelyaynu ilaahay weydiisanaynaa soomaaliyoo dhanna waaba u weydiinaynaa soomaaliyoo dhanna maanta colaad iyo dirir iyo dagaal dani inooguma jirtee ilaahay nabad baynu u weydiinaynaa wasala allahu nabiyana maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh